soo dhawaada guys waa wiilkeenii Ash waana qaybteeni labaad ee taxanaheena fadlan haddii aadan daawan qaybtii hore soo daawo si aad u fahanto qaybteeni labaad mahadsanid intii timaha la jarayay gabadhu waxa ay sharaxday macnaha 26 sentimitir waxay saaxiibkeed la joogtay in ka badan 2 years ama 2 sano waxayna kala tageen isla maalintaasi 26 sentimitirna waxay astaan u ahaayeen xusuusi ay rabtay inay iska tuurto inkastoo ay dibadda ka dhoola cadeynayay gudaha waa ay ka dhaawacnayd markii timaha la dhimeeyayna waxay isku aragtay muraayada markay aragtay timaha gaagaaban dareenkii qarsoona ayaa soo baxay wayna joojin kari weeday oohinta xitaa aniga ay la qiirooday timajaraha waxay siisay masar si degan ayayna u dejisay waxay tiri oohintu waa falcelin dabiici ah sida hamaansiga ama hindisaha oo kale inkastoo ay ahayd timajaris oo keliya qalbigeeda si weyn ayay u taabtay dadkii ayaa arkay iyadoo xabsiga ka soo baxaysa way yaabeen qaar waxay weydiiyeen inay hadda xabsiga ka soo baxday laakiin iyadu waxay sheegtay inay timajaris u timid qof waayeel ayaa yiri hore aan u maqlay saaloonkan dadku badanaa waxay u arkayeen meel cabsi leh oo yaab leh waayo dadka ka shaqeeyay waa dambiiliyaal culus gabadhu waxay sheegtay in adeegu aad u fiicnaa markay guriga tagteen waxay ka sii fikirtay timajaraha gabadha ahayd waxay isweydiisay dambiga ay gashay oo halkaas loogu xiray badanaa dadka inta badan xabsiga waqti badan ku jira waxay galaan dambiye aad u culus gabadhii timajaraha ahayd waxaa lagu helay dambi dil ah si kastaba waxa ay ahayd maxaabiista ugu degan xabsiga waxayna ahayd markii ugu horeysay ee la xiro iyo waxay kaloo la yaabtay cuntada xabsiga oo macaan ahayd gaar ahaan rootiga la uumiyey ayay jeclayd markii ugu horeysay ay dhadhamisay oo ilkeeda saartay si degdeg ay u cuntay saaxiibadeedii qolka si qarsoodi ay ula qaybsadeen cuntadeedii cuntada qaybsigeeduna wuxuu ka hor imaanayay xeerarka xabsiga laakiin maxaabiistu si qarsoodi ay u soo caawin jireen haweenada qaar maxaabiistu waa ay ka sheekaysan jireen dambiyada ay galeen markii la gaareen inay ayada hadasho way aamustay oo madaxa ay hoos u dhigtay waxay ka baqaysay inay sheegto in laga xukumay dil maalin ay aragtay maxbuus kale oo timo tidcaya way xiisaysay oo caabisay xirfadeeda timahan waxay ahayd mid aad u wanaagsan maxaabiistii kalena taa waa ay ku ammaaneen qof ayaa kula taliyey inay barato timajarista yaraanteediina waa ay jecleed inay timaha jarto waxayna aragtay booro lagu qoray arday timajaro noqonayo laakiin waa ay ka baqaysay inay iska diiwaangeliso oo waxay sheegtay inay maqaska ka baqayso sababtoo ah maqasku dadka ayuu dhaawici karaa kadib askari jooga ayaa dhiirigelisay waxay tiri maadaama aad taas faahsantahay wax dhib ah kuma imaanayo sidaa darteed ha cabsan erayadaas ayaa geesinimo siisay ugu dambeyntiin waxay iska diiwaangelisay fasalada qabashada maqaska waxay siisay cabsi iyo farxad isku jirta 4 sano ayna si buuxda u baratay xirfadaani ugu dambeynna waxay noqotay timajaraha keliya ee xabsiga saaloonku wuxuu adeeg u bixin jiray dad dibadda ka yimaada ballamahana maalin kasta waa ay buuxsami jireen dadkuna waxay ballan qabsan jireen 2 maalmood ka hor timajarista way ka jabneed ama ka raqiisneed saaloonyada dibadda hal timajarisna waxay ahayd 600 yen nus ka mid lacagtana dawladda ayaa qaadanaysa macaamiishuna dhammaantood way ammaaneen xirfadeeda maalin kastana 2 iyo bar oo duhurnimo ayay ka baxdaa shaqada xitaa gudaha xabsiga waxay heshay ujeedo cusub oo nolosheeda ah